السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دوادا برنامج كيني لما قاع بحاي براعي علم نفسي حلقتني waa xalqadeeni afraad waxaynu kaga sheekeyn doonaa qaybaha maskaxda loo qaybiyo walow ay maskaxdu tahay xubin adag in la sharxo haddana waxaan isku dayi doonaa in qaar kamid ah qaybaheeda aynu taabano wax qabadkoogana aynu isla eegno waxaan maskaxda u qaybin doonaa saddex qaybood oo saddex dhinac ka eegayno qaybteena ugu horeysa waxaan u bixin doonaa old brain ama maskaxdeeni hore old brain ama qaybteena ugu horeysa ee maskaxdii hore waxaan u qaybin doonaa 6 qaybood inay ka kooban tahay 6 qaybood qaybta ugu horeysa waxaa loo yaqaanaa brainstem ama jirida maskaxda haddaynu Soomaaliyeeno waa qaybta isku xidha laf-dhabarta iyo maskaxda soo laf-dhabartu halkii maskaxda ka galayso ayaan u naqaanaa brainstem waxaa jirta qayb kale loo yaqaano medulla qaybtaas oo iyadu controlsha qaraaca wadnaheena iyo neefsashada sanbabadeena qayb saddexaad oo iyada loo yaqaano bones waxay ka qayb qaadataa caawimaada isku dabaridka automatic functionska waxaa jirta qayb loo yaqaano thalamus iyaduna ay ka qayb qaadato soo ururinta macluumaadka dareemayaasha soo macluumaadka aragga maqalka taabashada urinta iyo dhadhanka kuwaas aynu naqaanaa shanta dareeme waxaa jirta qayb loo yaqaano reticular formation oo iyadu ka qayb qaadata carinta sida marka aad xanuun dareentid oo kale in jirkaaga ay cariso si gacanta loogala soo boodo xanuunkaas ama aad tiraadado oo kale soo iyadu waxay ka qayb qaadata ama muhiim u tahay wax kastoo la carinayo qaybta ugu dambeysa old brain waxaa loo yaqaanaa cerebellum oo isagu mas'uul ka ah barashada aan afka ahayn ama non verbal kaynu naqaano iyo xasuusaha soo isagu wuxuu ka qayb qaataa ama uu muhiim u yahay ama uu mas'uul ka yahay barashada non verbal ka ah aan afka ahayn iyo xasuusaha qaybta labaad ee maskaxda aynu qaybinay waxaa loo yaqaanaa limbic system kana kooban 4 qaybood qaybta waxa ugu horeysa waxaa loo yaqaano amygdala oo ka qayb qaata habeenta memoryga xasuusaha iyo dareemayaasheena qaybta labaad waa hypothalamus oo ka qayb qaata heerkulka jirkeena iyo gaajada qaybta saddexaad waxaa loo yaqaano hippocampus oo isagu saldhig u ah barashada ama waxyaabaha cusub ama skillska cusub aynu baranayno waxaa ugu dambeeya qaybta loo yaqaano pituitary gland oo aynu kasoo hadalnay xalqadeenii hore oo isagu ka qayb qaata ama ka shaqeeya inuu soo daayo hormoneska haddaba guud ahaan maskaxdeena xagga sare marka laga eego waxaa loo qaybiyaa left and right so left and right hemispheres baa loo qaybiyaa kuwaasoo iyagu maamula awood inu leenahay inaynu fikirno hadalno ama aynu waxyaabahan functionskaynu hadda qabano marka si cagsi u shaqeeyaan qaybta leftigu waxay maamushaa right-ka ama right bodygeena maamushaa qaybta right hemisphere-kuna waxay maamushaa left bodygeena marka guud ahaan xagga sare marka laga eego labada hemisphere ayaa maskaxda loo qaybiyaa qaybteena saddexaad haddaba waxaynu kaga hadli doonaa cerebral cortex waxa loo yaqaano isagoo ka kooban markaa 4 qaybood frontal lobe waxa loo yaqaano temporal lobe parietal lobe iyo occipital lobe frontal lobe-ka oo maskaxda halka hore ku yaala ayaa waxa uu qabtaa speaking-ka ama markaynu hadlayno inuu controlo judging-ka inaynu waxyaabaha qaar aynu xukunno abstract thinking-ka fikirkeena planning-ka inaynu waxyaabaha plan gareyno waxyaabahaas ayuu ka qayb qaataa frontal lobe-ku waxa ku xiga waxa loo yaqaano parietal lobe oo isagu ka qayb qaata body position-ka ama inuu balance gareeyo siin u taaganahay iyo sense of touch taabashada dareenkii taabashada oo isagu soo galayo waxa ku xiga ama xagga dambe ku yaala waxa loo yaqaano occipital lobe isagoo ka qayb qaata marka inuu la shaqeeyo indhaheena ama systemka arageena waxa ugu dambeeya temporal lobe ka loo yaqaano oo isagoo ka qayb qaata speech-ka hadalka sameyntiisa sound-ka maqalkeena iyo comprehension-ka ama saynu wax u fahano iyo fahankeena qaybahan aynu ka wada hadlayno oo dhan waxa u dheeraad ah xiriiryo kale ama neurons ama qaybo kala badan oo aynu ka hadli karin ama aynu kusoo koobi karin fiidiyowga
qaybahaasoo markaa maskaxdeena oo dhan loo yaqaano association areas, iyagoo markaa ka qeyb qaadanaya in qaybahan aynu kasoo sheekeynay ama xubnahan aynu kasoo sheekeynay in ay shaqadooda si toos ah ama si saxa ay u qabsadaan. waxaynu ku dari doonaa 2 cortex oo kale oo loo yaqaano motor cortex iyo somatosensory cortex. motor cortexku wuxuu isagoo ka qeyb qaataa habeenta ama hagaajinta body movementkeena ama dhaqdhaqaaqa jirkeena, halka somatosensory cortex uu ka qeyb qaato helitaanka sensory dataha ama informationka shanta dareeme laga helo. waxaan jeclaan lahaa inaynu ka wada shaqeyno cilmiyadan aynu ka sheekeynayno sinu Soomaaliyeyn lahayn. temporal lobe markaan leeyahay ama frontal lobe aan leeyahay, inaynu u helno kelmad Soomaali ah oo saxa. haddii aad idinku maqasheen waad igula soo share gareyn kartaan commentiska, Instagramka iyo Facebookaba. intaa waxaan ku koobinaa markaa xalqadeeni afaraad oo kaga sheekeynay qaybaha maskaxda loo qaybiyo. maskaxda intan aynu ka hadalnay way ka balaaran tahay, waana xubinta ugu balaaran jirkeena. xubin markaa structurekeedu same yahay, laakiin sidai u shaqeysa ay ku kala duwan yihiin bani aadamku ilaahay abuuray. intaa markaa waxaan ku koobinaa xalqadeeni afraad. waxaan rajeynayaa inaynu wax badan kala faa'iideysanay. waa inoo iyo xalqadeena dambe insha Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.